waxaa jirtay nin dalxiis ah oo Mareykan ah oo tagay dalalka Carabta mid kamid ah waxa uu la kulmay oday daa oo gidaar fadhiya oo tuugsanaya inkastoo aan is afqoon waxa uu tagay ninkii dabeetana wuxuu sir xog wareyso maadaama aanay is afgaranaynin ayaa odaygii daada weynaa waxa uu ku yiri lillaahi markaas uu ku celiyay 3 jeer ama 2 jeer oo kale 3 jeer ayaa waxa uu yiri lillaahi isagoo markaasi la hadlaya ninkaasi cadaanka Mareykanka ninkii muu afgaran asaga wuxuu ka codsaday in sawir ay wada galaan isagoo meesha fadhiya ninkaasi oo ahaa nin maal qabeena oo Mareykan ayaa sawirkii la galay ninkaasi miskiinka ah sawirkaasi markii ay dhameysteen ayuu dalkiisii ku noqday ninkii hantilaha ee Mareykanka ah kelmadii in loo fasiro ayuu markaasi raadiyay waxaana uu u tagay nin ganacsada oo telefoon u diray oo uu yaqiinay oo ahaa isagu nin Arab ah waxaana uu sheegay in kelmadaasi ay ka soo baxday nin miskiina oo dawarsanaya ama tuugsanaya oo isaga wax weydiisanaya oo ay ahayd in uu asxaan falo oo wax siiyo ninkaasi miskiinka aad ay uga qeyrooday wuxuu ogaaday inuu ninkii ka soo tagay dabeetana waxa uu sameeyay lacag ayuu ninkii u soo qaaday gaaraysa 1 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana la xiriiray safiirkii Carabka ahaa ee ninka tuugsanaya miskiinka daada uu ka soo jeeday wuxuu yiri sawirkaasi hal isla raadiyo iyo ninkaasi oo addresskiisu markii ugu dambeysay halka uu joogay ninkii ayaa helay 1 milyan oo dollar waa danjiri ama ambassadorkii oo nin miskiina lala doonanayo waxa uu siiyay markaasi uu ku fikiray lacagtan gaaraysa 1 milyan ha u dirin waxa ku filan 200 oo kun oo dollar oo kaliya 200 kun ee dollar ayuu wuxuu u diray ninkii ama gudoomiyihii gobolka ee dalkaasi ninka miskiinkii uu ka soo jeeday ninkii ayaa waxa gaadhay 200 oo kun waa gudoomiyihii gobolka ninkii ayaa isri nin miskiina 200 oo kun way ku badan tahay 2,000 oo dollar uga dhig 2,000 ayuu wuxuu u dhiibay gudoomiyihii degmada ayaa waxa gaadhay 2,000 oo dollar oo u socota ninkii miskiinka ah isaguna wuxuu isiri 2,000 oo dollar ninka way ku badan tahay 200 oo qura u dir ninkii police-ka haystay ayuu u diray marka 200 oo dollar iyo sawirkii oo leeyahay isku raadi oo 200 oo dollar waxaad siisaa ninka miskiinka ah ee gidaarka fadhiya taliyihii ayaa isagana damci oo kala galay 200 ee dollar ayuu arkay inay ku badan tahay ninkaasi miskiinka dabeetana 20 dollar ayuu ugu dhiibay nin askari ah oo uu yiri sawirka ay 20 dollar qaad oo u geeyay ninka halka fadhiya ee tuugsanaya ninkii askariga ah oo 20 sida ayaa isagana waxa soo galay damci kuwii ka horeeyba ay sameeyeen miskiinkii ayuu u tagay wuxuu ku yiri sawirkan ma garanaysaa wuxuu ninkii miskiinka wuxuu ahaa nin ajnabi ah oo dhowr bilood ka hor halkan iigu yimid oo aan wax weydiistay wuxuu yiri ninkii fariin buu ku soo diray oo wuxuu ku yiri ilaahay baa deeq baxsha ee wax sanad la ama ilaahay waxa ku siiyo ninkii miskiinkana wuxuu yiri aamin